بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قدوميها كميل gaarka golaha aqalka sare senatarada musharaxiinta kala duwan oo soo taagay xilka guddoonka howlwadeennada saxaafadda saraakiisha ciidamada ammaanka sugayo waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. weyn waxaa maanta sharaf iyo fursad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo idin weydiisanaya codkiina si aan idinku adeego idinka shacabka Soomaaliyeed xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare. waxaan qof dhalinyaro ah balse sida aad kaga bogan kartaan nuqulka taariikh nololeed hortiina yaala waxaan leeyahay aqoon heer sare iyo khibrad hogaamineed siyaasadeed aan ku gudan kara waajibaadka mas'uuliyad ee weyn uu xilkan u leeyahay. waxaan ka dhashay qoys dowladnimo oo dalkan geliyay dadaal iyo nafhurnimo badan. Allah maxamed raabsad wuxuu dowladnimo ka soo bilaabay ciidan difaaca dalka wuxuuna sidoo kale u soo adeegay dalkan goliyaashiisa fulinta iyo sharci dejinta. anigoo ku raajoogo himiladaas ku qotanta raadinta Soomaaliya cusub oo awood leh ayna ku faani karaan jiilka cusub waxaan go'aansaday inaan dalkan u shaqeeyo ka aqoonyahan ahaan iyo ka siyaasiyan ahaanba. aqoonyahan waxaan xilal sare iyo la talin ka qabtay dhowr wasaaradood oo halbowlu ah dalkan. waxaan dadaal badan geliyay ka shaqeynta arrimaha dhalinyarada gaar ahaan waxaan ahaa maskaxdii ka dambeysay curinta sharciga siyaasadda qaran Somali National Youth Policy oo ay hormuud u ahayd wasaaradda dhalinyarada iyo sportska. waxaan sidoo kale ka howlgalay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo aan la talisay hormuudna ka ahaa dejinta sharciga wakaaladda dhismooyinka wadooyinka Soomaaliyeed. siyaasi ahaan waxaan ahaa xildhibaan qaran oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaankii 9aad ee Jamhuuriyadda Federaalka kana tirsanaa guddiga gaashaandhigga baarlamaanka. mudanayaal marweyn sida ku cad qodobka 71aad dastuurka kumeel gaarka aqalka sare waa hay'ad sharci dejin oo maqaam sare ku leh dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo hirgelinta federalismka maadaama aan qaadanay nidaam federaal. sidoo kale hay'ad barbaarisa hoggaanka ee sare ee dalka mana ahan sida dhaqanka Soomaalida u turjumay aqal ay ku nastaan odayaasha. aqalka sare oo matala dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wuxuu leeyahay awoodo baaxad leh iskugu jira sharci dejin ka qaybgalka doorashada xilka qaadista madaxda sare iyo ilaaminta xaaladaha degdega. wuxuu awood u leeyahay ka qayb qaadashada magacaabista guddoomiyaha qaranka. haddaba aqalkan oo muhiimadaas baaxadda leh ugu fadhiya qarankan wuxuu u baahan yahay hoggaan karti khibrad iyo aqoon iyo hal abuur dhalinyaro leh kaasoo ka dhigaya aqalkan halbeeg midnimo iyo astaan shacabku ka dhex arki karaan hirgelinta himilada ay higsanayaan. aqalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan sare u qaada aqoonta xubnaha si awood ugu yeeshaan sharci dejinta hufnaanta matalaadda iyo la xisaabtanka. waxaan u baahanahay hoggaan awood u leh in aqalkan uu ka dhigo hoyga midnimada wanaajinta xiriirka dowladaha federaalka dowladaha xubnaha ka ah wanaajinta iyo wada shaqeynta xiriirka aqalka iyo golaha shacabka. abuuro xiriirka caalamiga lala yeesho dhigiisa dowladaha federaalka si aan wax ugu baranno khibradooda iyo aqoontooda. aqalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan aragti xooggan ka haysta dhismaha dowladnimada Soomaaliya kaasoo aqalkan ka dhigaya mid u gaar ah u noqda arrimaha sharci dejinta masiirka ku qotoma federalismka dhamaystirka dastuurka sida waafaqsan nidaamka federaalka wadaaga kheyraadka dalka si waafaqsan nidaamka federaalka dhamaystirka nidaamka maaliyadeed waxa loo yaqaan afka qalaad fiscal federalismka si waafaqsan nidaamka federaalka iyo dejinta dhammaan shuruucda kale ee lagu baahan yahay federalismka. mudanayaal marweyn mustaqbalka aqalka sare maanta gacantiina ayuu ku jiraa. codkiina wuxuu go'aamin doonaa masiirka aqalkan iyo samatabeenta dalka guud ahaan. codka maanta wuxuu kaalin mugli ka qaadan doonaa dhismaha dowladda casriga iyo dal jiilka soo socda u aayo. waxaan ballan qaadayaa inaan si wanaagsan danta dalka
ula shaqayn doono guddoomiye walba oo aqalka loo doorto iyo xubnaha aqalka si aan u xaqiijino dhammaan higsiga sare ee aan soo xusay. door weyn aan kaga qaadan doono sidii aqalkan uga dhigi lahayn mid ka jawaabo baahiyaha dowladnimo ee shacabku qabaan. mudan yaali mar weyn waxaan idinka codsanayaa inay siisaan codkiina si aan u buuxiyo kaalinta dhalinyaro ugu bannaan hoggaanka aqalka sare. waxaan idin ballan qaadayaa si adag oo daacad ah hufnaan leh aan ku shaqayn doono guddoonka intiisa kale iyo xubnaha aqalka sare si aan u xaqiijino himilada muwaadiniinteena. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan fariin u diro odayaasha, waxaan rabaa inaan fariin u diro waan leeyahay aqalkan ku jira waxna qaata waxna nahanbeeya. dhalinyarada waxaan rabaa inaad cududdiin muujisaan aad aqalkan guddoonkiisa aad ka muuqataan. mahadsanidin.